bum 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 bum. حبيبتي مسكلم صوتي ما حلو يا أخي. يا soo dhawaada yaa xaaladiina ka warrama yaa soo jeeda yaa soo jeeda calaykum assalaam jawaahir queen soo dhawow yaa soo jeeda yaa long time wax yar baan kasoo galaa beejkayga khaaska ah markaa bal soo dhawaada su-aalihiina diyaar baanu nahay yaa shacayb khalille diyaar soo dhawow yaa cama soo dhawow kulligiin yaa maanta aanu diyaar wayni yahay yaa shaqalaan baa haysa iska faa-ida jaaniska yaa aniga marka aan iraaha jaaniska waayo waqtiga kale lacag baa aan ka qaadaa dadka yaa cabdilfataax soo dhawow stein adiguna yaa farta ha tago qofka soo jeeda haa waa saas weya hala taago farta hala taago yaa horta marka ugu horeysa xaggan insha allah tacsi baan ugu darayaa dadka dhintay xamar ilaahay ha badbaadiyo waxaa la yidhahaa ilaahayna soomaali o dhan ha soo hadeeyo ilaahay ha naga qaado waxaa la yidhahaa waxaan inagu isku hayno yaa waxaan inagu isku hayno ilaahay naga qaado farxaan daawud soo dhawow yaa su-aalihiina soo daaya anigu maanta diyaar baan nahay su-aalihiina bal soo daaya qofka doonayso hala soo qoro haddaan doonayo waan soo jiidaya yaa wax yar baan haystaa waqti haafin awar nus saaca waxbaan ka shaqeynayaa yaa war ilaahay soomaaliya soo hadeeya wallahi alcadiim xaalad aan ku noolnahay ilaahay baa og wallaahi yaa wax fiican noo sheeg ana nacnaciina haa wax fiican haddaa rabtid lacag baa la bixiyaa lacag baa la bixiyaa soomaali de free maafi waxa la yidhaha free ana kuma naqaani haddaan soomaali nahay haddaan wax qabanayno waa inaan yaama magacan ka helnaa yaa galab wanaagsan waxaa la yidhaha bashiir yaa odaygii weynaa soo dhow bashiir haashix yuusuf yaa wax la yidhaha free na kuma naqaanin dadkaa kale free ugu shaqeynaa dadka ajnabiga laakiin soomaali dhexdeeda yaa waa inaan wax yar dee naga helaa hadal free ma soconayo wax soo tuura yaa mawduuc ama wallahi mawduuc maya hadda mawduuc inoo furasiin shaqalaan bay haysaa anu talaya tusaale qofka waan siiyaa yaa wax iga weydii waan kusoo jawaabayaa toos kaala leexan maayo yaa su-aashay weydii xaadiriin house gavenka maxaa weeye caawa dee inagu soo daaya house gaven wallahi anu ma garanay anigu waan ku daalay soomaali boqolaal mawduuc baan soo dhignay weligayba wax baan soo dhigi jiray dee inagu mawduuca keena badan ciyaalka saxaafadda waaye yaa saxaafad baan moodi markaa soo dhawaada yaa su-aalihiina diyaar waa loo yahay xaadiriin si daacadan uga jawaabaya ani qof su-aalkiisu toos anaka inagala xanin ma aqaani anu ma gabasi dad baa gabta yaa soo dhawaada kulligiin dee waxaa leeyahay su-aal soo daaya waxba ma doolisiin intay faadeen wuxuu yidhi madaxweynaha galmudug waa kuma ma galmudug laaniyo garan waayo mid cusub maan dhaweyd maa la dooranayo yaa mid cusub miyaan la dooran maan dhaweyd mid cusub baa la doortanayo mid yaroo aan isku eegnahay ilmaadeer aan nahay baan u malayaa ninkaas yaa anaku naga soo lumay ninkaa galmudug qabsaday waa isku eegnahay imanka suuradda dad walaala baan nahay laakiin magaciisa garan maayo yaa dad baa jira subxaan allah markaa saa u aragtid magacooda maskaxda kuu gelayso yaa garanayniyo bashir yaa garanaya yaa waxaan garanaya inu isku eegnahay bas yaa laifka waa iska jecel yahay waa saas weeyaan yaa wallahi garan maayo wallahi mid cusub baan garanaya un la doortay dee yaa oo waxa weeye kooxda nabad iyo nolol soo maha odaygii miskiinkaa xeef waa laga qaaday yaa odaygaas runtuu sheegi jira wallahi yaa laga dhaafa siyaasadda
soo dhawaada caadi wax kastaba diyaar waan u nahay waxaa doonaysiin anigu waa inii sheegaya wallahi ya waxaan aqaano waan aqaana waxaan aqoonin waxaan ma aqaani laakiin nimankiinan gulmudug odaygii miskiinka ahaa odaygii mujaahidka ahaa odaygii runta u sheegi jiray cid kasta ya intaas ku tagteen ninkiio waxaa la yidhaha qoladii wadaadada ahaa ayaa odaygii miskiinkaa bacsateen wallahi xaaraam calaykum wallahi habaarkiisa ayna soo gaaraya odayaashuna hadda waxa la weligaa waxaa la iska ilaaliyaa oday gaboobay iyo habar iyo gabar yaroo waxaa la yidhahaa aa ku ciyaartid ya dad saddexdaas hadday iyo ina yaroo agoona afartaas haddaa mid uu ku habaaro waa kula kacday ya wuxuu yidhi xaaladii yarayso waxaa jooga gatar baa la yidhaha lagii ya imku cabayaa waxaa la yidhaahaa ya xaliibkii caanageelkii buu gatar ku cabayaa waa lasoo cilaajiyaa ya gatarna waa dad lacag leh markay iyagu cilaaji kari waayaan faransiiska iyo german iyo diyaarado khaasaa lagu kaxaynaya war carabta waa landheere wey ya ilaahay soo caafiyan baa leenahay ya xamdo soo qabo xamdi haddaan soo qabto inta yare af soomaaligan aqaana bay kala duuraysaa inta yare af soomaaligan aqaana bay kala duuraysaa waan soo aruuriya af soomaaliga wallahi ya xamdi waa libaaxado iyada af soomaaliga ay bartay maan aqoonin ya wallahi maan aqoonin wallahi iyada ay bartay af soomaaliga iyada iyo bilaal iyo kooxda jiwaliga ay baray waan kusoo qabanaya okay bashiir waan kusoo qabanaya nin culus ma soo qabanayna saxaafi caam soo dhow warwaanku salaam gudoomiye haye nin culus nin lagu waayey dee maraykankii baa qabatayo waaba lagu leeyahay niyow ya layma la-aana meeshaana iska dhoobanahay waxaad iiga warantaa xaaladaha guud waxa weeye nin xogogaala tahay caro walba war ka hayo af carabiga yaqaan waxa waaye caradii waxaad iiga warantaa somaliland waxaad iiga warantaa caradii koonfureed oo muqdisho iyo waa xaaladihii cusbaa iyo kolley nin xoogaala tahay oo anagu dee badana waa iska mashquulsanahay war anu ninkaa miskiinkaan ahay adigaa khabiirsan oo saxaafiye ninkayga miskiinka adiga su-aalaan ku weydiinaya ma iga jawaabi kartaa adaan kaa faa'iidaya janis ummaddan faa'iidaynaana ya wallaahi nin horta su-aalaha aad i weydiida jawaabtooda waxaa laga yaabaa qaar inay igu adkaadaan laakiin badan anigu waxaan jeclahay dadka inaan su-aalo weydiiyo oo iiga jawaabaan laakiin anigu haddaad su-aali weydiiyo waa ka jawaabaya intii tabartayga waayahay adigu ma ina adigu siyaasadda si fiican oo u taqaanid ma garatay oo dee federaalka aad la socotid waxaa la yidhaahaa hadday noqoto galmudug hadday noqoto puntland hadday noqoto meel kasta ma garatay su-aashaan ku weydiinaya madaxweynaha soomaaliya bishii lacag ma soo qaataa wallaahi niyow taas waxa waaye mid aanan ka jawaabi karin sababtoo ah mushaarkiisa anugu ma dabagalo laakiin waxaas leeyahay xaquuqda madaxweyne uu leeyahay unbuu qaataa wixii asaga u gooniyo oo dhacdhaca ma ogi laakiin waxaan ogahay baarlamaanku lacagta ay qaataan waxaan ogahay wasiiradu lacagta ay qaataan laakiin madaxweynaha inta uu qaata ma garanayo balse waxaan kaa rabaa oo aan rabaa inaan anigu markaad su-aali weydiido aniguna aan mid ku weydiiyo waaye diyaar xaadirin waxaad iiga warantaa arrintii xaaladda sukarraq ee somaliland iyo puntland ee gobolka sool xaggay maraysaa ma lagu heshiiyey ma laysku maqan yahay war meesha lacag baa lagu cunayaa nimanka filmaan bay wadaan nimankan isaaqiya ma jeerteen hoose way isla socdaano ma garatay meesha lacag baa lagu cunayaa lacag ma garatay sabaayad iyo waxaa la yidhaha nimankii ciidanka xagga deganaa waa nimanka ugu lacag badan mashahar waa nimanka waxaa la yidhaha maalin kastaba sabaayad qoladana sabaayad ba soo korisaa qoladana sabaayad ba soo korisaa ciidanka xaggaa fadhiya sabaayad buu kaga dhirtay ma garatay united nation iyo isqabta isdejiya filmaan baa la wadaa ma garatay lacag baa lagu cunaya hay-adaha ma garatay waxa ma hayaan meesha lacag baa lagu cunayaa petrolna waa lasku haystaa dee meesha petrol baa yaala eryada ma garatay ka buuxa qoladana ma doonayso intay horta waxaan kuu sheegayaa
muhiimadda soomaalida meel kastoy joogaan waa nabadda iyo sidii dadku ay bahwadaag u noqon lahaayeen. anigu fikrad ahaan waxaan ogahay in ay soomaaliya marnaba kala maarmin. adigu waxaa tahay nin aqoon leh, jaamiciya, oo dalalka carabta wax badan joogay, somalilan ku soo koray. anigu waxa weeye dadka somalilan ku nool boqolkiiba boqol shacabkooda anigu waa taageersanayo. waa dad nabadda jecel, waa dad siday wax u qabsan lahaayeen. laakiin markii siyaasadda dhinaceeda loo dhaqaaqo, maamulka hadda ka jira somalilan midkii ka horreeyey haddaan barbar dhigo, midkii ka horreeyey wuxuu ahaa mid wax turxaan bixiya oo yidhaahda bal horta soomaaliya aan wada hadalno, ayaga aan u ducayno, ilaahay aragta inuu dhibaatada ka bixiyo. laakiin maamulkan hadda jooga oo muuse biixi waa qil iyo qilo waxay leeyihiin annagu soomaaliya mana la hadlayno, mana la fariisanayno. hadda waxa wax jecel waa annaga reer koonfuro oo soomaali halkii u dambeyday ay taagan tahay soomaali 5 waaye. laba is haysata haddeer. aniga qadiyadda igu jirtaa waxay tahay inaysan soomaaliya wax maqan in la raadiyo maahane midda hadda joogta aan la kala goyn. ninka la yidhaha faysal cali waraabe iyo ninka oo wadani ninka guddoomiyaha ka ah maxaa la yidhaha magaciisa cabdiraxmaan ciro. nimanka mucaaradka ay iyo markay isqabtaan ninka la yidhaahdo ninka hadda madaxweynaha ah muuse way kaftamaan, way iscaayaan, waxa weeye faraa la isku taagtaaga kabacdina waa la heshiiyaa. ma fahan sababta loo heshiiyaa waxay tahay waryaare aqoonsi baan raadinaynay oo dee yaa nala ku maadsane dee wax walbaaba aan uga samarno sidaan annagu nabad ugu noolaanayno. dee reer koonfurkaasna aysan ma aragta haddaan annagu isqabanno waxa weye waktigeenaan ugu samaanaya. marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horta nin aqoon-yahana waa tahay, soomaali ma kala maarantaa? wallahi horta horta haddaan taa runta ka hadlo anigu uma jeclin arrinta intaan beenaan ka sheego, ma garatay? horta soomaali marna way kala maarantaa, ma garatay? marna ma kala maaranto. soomaali markaan kala maarweyn waa marka runta la isku sheegayo oo dee marka qadiyadda laga hadlayo nabarkii la taabanayo. yani mathalan for example berigii berigii intaana soomaaliya iyo somaliland isku soo biirin waxay ahaayeen laba dowladood bay ahaayeen, laba maamul bay ahaayeen, ma garatay? laba mantiqadood oo isku soo biiray, ma garatay? maanta aniga nin somaliland baan ahay, maanta aniga puntland xagee ka soo baxday anigu garan maayo, jubbalandna xagee ka soo baxday anigu garan maayo. maamuladan la sheegayo wax ka jira ma jirto. marka waxa weeyaan marka ugu horeysa bal qoladani intay soo heshiiso oo isu soo dhisto oo iyagoo hala oo Soomaaliya la yiraaho dee waan la hadli karaa, waayo aniga dee waxa meeshiga yaala cabasha iga taala waxbaan arkay aan doonay intaan ka hadlo. marka aniga Puntland iyo dadkan yaryar ee imka soo baxay iyo galmudug ka soo baxay dee anigu la hadli kar maayo. aniga Soomaali marka ay timaado waa tay yani iyagu reer Soomaaliya ay soo taagay number 1, ma garatay? waxa la yiraahdaa waan gartay deega maqade waa la kala maqade waa la kala maarmaayo, waayo de meeshii haddii la isku fahmi waayo de weligeed isku dhiglayaan mayno. waxa weeye nin kastaba marka maamul kastaba waayo imka maartay Puntland marka xisaabisid waa dawlad taagan, lugna dibadii ku jirtaa, lugna xagana ku jirtaa, ma garatay? galmudug waa mid lamid ah, caalam bay leedahay, ciidan bay leedahay, madaxweyne leedahay, barlamaan bay leedahay. يعني sidii dawlad banaan baxo kale ayay tahay oo nidaamkii systemkii federaaliga waxba ka qaldan. imka Mareykan baa adigu joogtaa, nidaamka federaaliga waa adiga og tahay, ma fahamti? dee ma jiro imka matalan waxa la yiraahdaa magacii Texas madaxweyne ma laha, waxa leedahay mayor bay leedahay wax la yiraahdo, ma garatay? waxa la yiraahdaa wasiir caafimaad Texas ma laha, ma garatay? wasiir difaac ma laha, oo dawladda ayaa soo dirto oo qaybna waxa la yiraahdaa matalan booliska laba oo qaybsamo oo qaybna waa federaaliga booliska ayaa la yiraahaa, qaybna waxa weeyaan waxa la yiraahaa kuwa magaalada matala oo isku lacag xataa ma noqdaan, ma garatay? marka marka waxa wanaagsan waxa wanaagsan
ag anigu waxaan ku sheegaysaa waxaa loo kala maarmi karaa maanta xamar way degi leedahay waxay ku degi leedahay federaalkii qalad baa laga fahamsan yahay waxa caburinaya waa nimankan calanka soomaaliya sita laftoodu nimanka soomaaliya dibadaasay ka taagan yihiin oo waxay leeyihin bal iyagu ay soo heshiiyaan ma garatay okay maada horta maya adnaanku saaxiib badan oo rag iswidan wada joogi jiraan nahayo si fiican isu yaqaano nin walbaaba meeshuu seefta u jaraayo wanaagga iyo xumaanta uu garan kara halka ay wax u socdaan markaas somaliland ka hadlo badalka markaan ka hadlo maamul goboleedyada markaan ka hadlo soomaaliya dhexdeeda ka jira midda soomaaliya iyo somaliland waxaan anigu ka aaminsanahay aniga reer koonfura anigu horta waxa weeye waxaan u socdaa dhinaca waxqabsiga soo kabashada dhibaatadii soomaaliya ka dhacday 90kii ka hor ayaad adinku horta ka sheeganaydaanoo waxaad leedihiin si aad barro allah u naxariisto ayaana dilayoo waa horaana horta 90kii wixii ka dambeeyeyba ummaddii soomaalida waxa weeye un musiiba iskaga dhacday oo ayagii isdileen laba wada dhalatay abti kuwa isu ah wixii hadda waa laga soo gudbay soomaali waa soomaali un wax hadda caadifad ah iyo wax dhibaato ah oo dhex yaalla soomaali dhexdeeda ma jiraan oo aan ka ahayn dhibaatada dagarqabayaashu ay wadaan taasna insha allah in lagu hadalka balsiibal anaa wax kuu sheegaya sugaanta aan ku siiya somaliland aan ku sheegaa waxay wax noqon kartaa sidaad sheegtay markaan anigu wax qabsado dowladaydu xoogaysato cunaqabataynta laga qaado hub aan samaysto diyaarado aan samaysto somaliland aan markaas inta u yeeraa iraahdo waxa waaye soomaaliya dhinac federaala ay saldhigatay awood aan caalamka kula tartamiya kuwa gobolka bariga africa intaba waa leeyahay ee meel heblaan ku wada hadlaynaa nagey adoon diidi karin ma fahamta horta marka halkaas wada tagna beesha caalamka ayaa maaragtay arki karta 30 sano ayaad aqoonsi raadinaysa marka waxaan ku leeyahay horta bal anigu aan wax noqdo adiguna meeshaada iigu qabirow wixii nabadgelyadaana ka shaqayso aniguna anaa isku maqan anoo wax noqon horta adigu wax ma noqonaysid ma faham horta iga maqal waayo haddaba waxa weeyaan horta soomaali ma kala maarato ifaham soomaali ma kala maarato laakiin horta camo waxa weeyaan qadiyadda inaa sidaa idinku u sharaxaysin waxbaa ka qaldan waxa weeye marka ugu horeysa somaliland markii jabhaduhu ay kaceen waa tii iyadu waxaa la yidhaahaa dhulkeedii ciidankii dowladda ka saartay ma garatay 3 sano bay sugayeen ilaa 4 sano bay sugayeen inay xamar ay hagaagayso ma fahamtay xamar maadaama ay hagaagi weyday oo waxaa la yidhahaa majeerteen iyo hawiye ay ka fariisan waxaa la yidhahaa majeerteen iyo hawiye ay ka fariisan waayeen oo 24 saacadood hub isku dhacay markii dambena sheekada ee hawiyo kaliya ay noqotay oo intaasoo sanadood aan sugayey dee miyaanay ahayn inaa baalkii liigar qaado ila somaliland markii 91kii maa la oran somaliland 96kii baa la iclaamay 6 sano bayna sugayeen markii ay jabhadu kaceen deega maqal hadalka waaye marka deega maqal hadalka camo waxa weeyaan markii ay dowladdu ay dhacday 6 sanadood baa la sugayay okay 6da ka kaalay waxa weeyaan aniga maanta marka somaliland ahay dee khaatima state bay soo aftadii soo gelisay atraher waa maamul ma garatay anigoo nabad ku nool anigoo nimankii dhulbahaante iyo nimankii samaroon iyo nimankii waxaa la yidhahaa warsangeli anigoo iska wato nabad ku nool ayaa intaa timi baa tiri waxaa la yidhahaa khaatima state hoos iga soo gelisay anigoo markii horena wax tabanayay dad walaala nahay aan isku dad nahay ayaa hub u dhiibtay aad tiri nimankaa isaaqaa iska soo rid oo dhibaato badan ay geysay ima qaldee aniga maanta wadankayga aniga diyaar imanka dadkan waxay soo taagan yihiin aniga maanta wadankayga diyaar wuu yahay laakiin adigu diyaar ma tahay maanta waatii markii la yidhi farmaajo uu yidhi awara hadlaan hadal baan u furaynaa soomaaliya somaliland u furaynaa puntland waata markiiba soo gashay ay tiri annaka waa in laga soo qayb geliyaa marka su-aasha taalla puntland ma dowlad keligeedba oo maamul keligeedba oo taaganba mise waxa weeyaan waa gobol ka mid ah gobolada soomaaliya marka xumaatadaasoo kale ayaa keenaysa inaa meeshii la sii noco aga jawaabaa horta su-aashaas puntland waxaa tiri maamul gooni u taagan oo dowlad isku sheegaya mase waa maamul ka tirsan dowladda federaalka
oo madaxweynaha ka ها yahay farmaajo ها taas waa kaaga jawaaba horta meeshaan waxaa ka jira soomaaliya nimadii صح si fiican shacabku aysan u fahmin صح puntland dhexdeeda xafiisyo federaala oo dowladdu ay leedahay ama مم. canshuur lagu qaado ama wasaaradda dowladda centraalka ahi صح ama booliis ay leedahay ama ciidamo military oo federaala oo puntland jooga horta ma jiraan ma fahan صح federaal anigu waan aqaanaa stateka hadda joogaba waa federaal waxay صح leeyihiin waxa la yidhaha countiyo waxay leeyihiin haddii la booliis waxay leeyihiin qaybo مم. wax walbaaba federaalku ayagaa maaragtay wixii la xalli waaye ayagaa u taagan ama waa qayb مم. system gobolka صح arrinteedu kaygana aan iskale kaagana kula lihi waaye markii dowlad soomaaliyeed oo hana qaado oo hadda midaan jirta ama mid kala timaada oo xoogaysato maamullada gacanta ku qabata صح la helo inta ka horeysa puntland waxay u taagan tahay ayadaa garanayda laakiin maamul ma ahan مم. ka madax bannaan federaalka waa maamul federaalka ka mida laakiin زين dhulka وايا هاي bannaanka u وايا taallo وايا هاي سؤال بك ودينيا maanta marka aragtid iminka gobolada anu waxa maanta anaka iyo jiwal waxyaabo badan baan xisaabinay lacag badan oo Soomaaliya ka baxa ma garatay oo lacag ciidanka lagu dhisi lahaa ayaa dad baa inta jacket soo gashadaan iyo karafadad soo gashadaan aqoontoodii aqligooda kule bishii $1 iyo $1,500 iyo $3,000 iyo bishii iska qaatay iyagoo aan waxba uma dul soo kordhin matalan iminka maanta adigu waxa leedahay Puntland amba Galmudug waa dawlad ka tirsan waa maamul ka tirsan Soomaaliya aniguna waxaan ku leeyahay maaha been bay sheegayaano lugna dibadii ku jiraan oo waa ka maanta hadduu farmaajo yiraaha anigu qatar la shaqeyn maayo amba imaaraadka la shaqeyn maayo waa kuwa soo istaagay farmaajo annaka ma namatiro waadiga ogeed Cabdiweli Gaasbari uu dhaweyd markuu tagay Dubai waa ka yiri Muqdisho is not Somalia is not Muqdisho ma fahamti okay maanta adigu maamul baa degan tahay Mareykan baa degan tahay maadaama Mareykan aad degan tahay gobolka aad degan tahay de madaxweyne ma laha wuxuu leeyahay maayar gobolka aad degan tahay wuxuu leeyahay dad dawladda hoose u shaqeeya oo de waxa la oranayaa mesela managerka tacliinta education manager bay la baxaan ma garatay de wasiir ma la baxaan waxa la yiraahdaa xildhibaano ma la baxaan waxa la yiraahdaa gobolka aad degan tahay ma jirto waxa la yiraahdaa agaasime waxa jirta waa maayarka ma qade ma qade ka hadlay faham hay dhibaatadan hayda ku sheegay dhibaatadana hayda waxay tahay dowladdii Soomaaliya markii la aasaasay magac qabiila lagu aasaasay lixdameeyadii ilaa iyo haddana weli waxaan Soomaalidu ay u wada degan yihiin ay u kala nidaamkan qabiilka markuu naga dhex baxo oo nidaam xisbiye badan iyo nidaamyo kale la helo ayaa horta hadii ilaahay su'aal ma ku weydiin karaa مثلا إما كان أنا يسوق قاعد تناهي نساقة ككلام الصومالي أيه أنا واحد نقول هذا عقلي الصومالي ده لنا ما فهمت كبح جبويها يا سمرة أنا زي كم قلت أنا واحد نقول هذا يا نين إساقة يسوق قاعد ما قرأتي ما أنت أنا كمرك اللي را أنا بدولة على سمستر اللي را الصومالي أو ولا على حاجة اللي تجينا اللي هي شيء أو معاملة على سمستر أو كلا ضبين على سمستر أو قبلاء على سمستر أو علن على سمستر أو عيدا على سمستر أو بولس على سمستر okay maanta aanu markan waxa la yiraahaa aanu tagayo waxa la yiraahaa mesela Allahumma salli ala nabi dawladda federaaliga ma garatay adeer markuu uu khaatimay state iyo Puntland iyo Jubaland ifaham iyo waxa la yiraahaa yani ag xisaabi khaatimay state Puntland iyo Jubaland waa saddex maamul Soomaha وهل قبيل ما قرأتي وحالي رمانت بوتلان لين إساقة ما يمن كرو إساقة هذا عينما ويدقان أوكي واحد دقان وحالي راها هدف نمو قاربة كدقان ما قرأتي دي ما أنت لين إساقة ما يمن كرو بوتلان وما أرن كرو أنا وزير بس كسو شرحها مدحوين أسكسو شرحها ما قرأتي وحالي رانين إساقة ما أنت مدقي كرو جبلان ما أرن كرو أنا والله أنا وين دقايو حقيقي برا لكن Somaliland waxa ka helaysaa nin gabooye ah waxa ka helaysaa nin Samaroona waxa ka helaysaa waxa la yiraahdaa nin dhulbahaanta ah oo wax ka ah waxa helaysaa Ciise
waxaa helaysaa waxaa la yidhaahaa yani qabiilo badan oo soomaali ah dee marka su-aasha taallaa aan adiga ku weydiinaya ma kaaga ama jawaabaa su-aasha taalla aan ku horta ma kaaga weydiinaya jawaabaa su-aasha ku weydiinaya waxa weeyaan ah okay maanta aniga maanta nin isaaqa markaan iraaho ilaan soomaaliya waxay ahayd laba dowladood bay ahayd maanta anigu waan soo fadhiisanaya kursigiyo 3 maamul oo daarood uu leeyahay ma garatay 3 maamul uu ah daarood uu leeyahay qabiilka daarood la yiraahdo marka ka baxno amjiya waxa runtaas ku sheegno daarood uu leeyahay eh, oo dowladii systemkii 4.5 meesha ka socdo dee anigoo isaaq aadeer weligii madaxweyne ku riyoon kari maayo waayo daaroodkii baa 3 kursi leh horta hawiyihii baa wuxuu leeyahay horta laba maamul buu leeyahay su-aashaada ma qalde laba maamul buu leeyahay hawiyihii ah ma fahamti marka anigu waxba ka heli maayo ah ninkii baa dhaqaale qaadanaya ninkii baa wax ma kasta qaadanaya adeer anigu waxaan ahaanayaa waxaa la yidhaha sawirba meesha ka ahaanaya marka anigoo xorriyadeyda maanta haysta horta waxay qasbaya dee inaad inaad aan kaaga jawaabe ii kaadi ah waxaan ku leeyahay nidaamka federaalka oo hadda dowladda bayska u ah ah ayaad horta adigu xubin ka tahay mm, haddaad maaragtay wasiir warfaafin mm, horta federaalka ayaad qaybtaadii libaax ku leedahay mm, oo inta soomaali wax ku qaybsataya mm, waxaa kuu soo haray kismaayo oo jubbaland wax ma ku ah leeyahay haddaan isaaq ahay puntland wax ma ku ah leeyahay halaan kuu sheega maamulka ka jira jubbaland mm, haddii aad deegaan ku leedahay ilaan dadka waxay iska soo xuleen salaadiin mm, odayaal dadka matalo cuqaala ah oo beel walba leh kabacdina ay nidaam hoose mm, oo iyagu ay xal ku samaystaan ah dowladdii dhexe markii la mm, waayey oo muddo la mm, sugayey baa waxaa dadku deegaanadu ay ku fakereen mm, siday u samaysan mm, lahaayeen wax la yidhaahda maamulladaas anigu hadda u qiil dayi maayo waa wanaagsan yihiin kuma lihi mm, laakiin waxaa la yidhi waxaa la yidhi haddii haddii sarar la mm, waayo sanbabo waa hili baa la yidhi ma fahamta sa waxaa ula jeedaa maamulay samaysteen mm, galmudugtaas mm, waxaa la yidhi annaguna aan isku qabanno mm, dadkana aan iska qabanno sa oo aan annagu isxakamayno annagu dhexdeennana aan ku heshiino nidaamna aan ku samaysanno iyo horumar iyo waxbarasho mm, iyo maamul bulshada wax u qabta sa puntland waa la mid sa oo waxay ahayd tii somaliland kadib samaysan majeerteen iyo ah intii la noolba sa maamul samaysanno sa isaaq anigu maaragtay sool laga iyo daa sanaag telefoonka in dad baana laysku soo wacaya haayo ha okay camo marka ifham haa ifham camo haddaba adiga eeg waxa isku marka wax waxaan ku sheegaa waaye haldoon waaye waaye su'aal ma ka weydiiya waxbaad ku leedahay waxaan ku federaalkaad wax leeyahay ku ma leedahay wasiir baa iga ma waxa gaagaaban baa ku dul wareegaysaa wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo war intay dowladda imika ra-iisul berigii wasaaraad imaqade leedahay dowladdii firi berigii carte somaliland imaqade dowladdii berigii carte somaliland eega maqal hadalka dowladdii berigii carte la asaasay ra-iisul wasaaraad eega leedahay maqal hadalka iga maqal waxaa la yidhaha berigii carte haye ilaa iyo maanta adeer kursigu wuxuu ka bixi laayahay majeerteen iyo hawiye marka annagu masuwar baan ka nahay meesha imise ayaa maya doorashooyinka waxaa isaaq soo sharaxay waxaa isaaq kursi hore weyda kaale madaxweyne ka noqo haddaad doonaysid waxaa la yidhaahaa inay soomaali isku soo noqoto horta waxaa la yidhi kuu waayahay ka yara sheegaa mahad imika wasiir waxaa la yidhaha ku-xigeenka ah khayri waxaa uga dhigi weydeen waxaa la yidhaha wasiir ku-xigeenka waxaa la yidhaha soomaaliya waay adiga marna kursiga adiga iyo daarood marna waxaa la yidhahaa madaxweyne u tihiin marna wasiir kala bedelinaysiin ma saasaa soomaalinimo doonaysa kasoo noqono markaa mise waxaana midaan moodeen kuu dad mise sheegayaa waxaa mooday isaaqu dad dam intay yihiin oo indhala waxa arki maayaan maya inaad ero halaan kuu sheegaa waxaa la yidhi nimankaa reer waqooyi oo isaaqa iyo intii la raacan oo magaca somaliland la baxay nidaamay samaysteen oo ayagu waxbay kuuskuusteen annaga soomaalidan koonfure haddaan nahay dhibaatadan ku jirnaa waxaan soo marnay nidaam hogaamiye kooxeed waxaan soo marnay nidaamyo badan abaaraha waddankii ka dhacay dagaallo xumaa meesha iyo ahliyaa ka dhacay wixii waa ka soo kabsannay labadii ku wixii ka dambeeyey waxaa la yidhi war nimanyow annagu horta aan isxallinno oo waxaa batay qabaa'ilada ka jira koonfurta hankoodiyaa batay marka waxaa la yidhi horta bal annagu aan soo xallinno hadday ra-iisul wasaare tahay hadday madaxweyne tahay hadday wasaarado tahay macquula aan annagu qaybsanno somalilandna aan wax siino
ما dee فهمتي waayahay anigu su-aasha ku أنا waaya هذا حلقة waaya anigu su-aasha ku weydiinaya cama iga jawaab رئيس الوزراء قالوا oo leesha أنا anigu واحد نقضي madaxweyne aniga waxaa igu dooran weydi كومدي ذي كلا afar وصل ترتم madaxweynaha soo maray waana daarood amba waxa weeyaan waa hawiye ما السوشيال راح يدو إماتي يا كودي soo kuwa kula joogay soo sharaxa مركز مركز دورة شلة قارو dee doorashada يو soo ay soo galaanba imika sanadkii maanta tan farmaajo markii la dooranayay wiil yaroo waxaa la yidhaha isaaqa oo maaldiini la yidhaaho miyaanu isu soo sharaxin hadday caqli leedihiin aad doonaysa soomaaliya intay soo noqoto wiilkaa yara isaaqa shacabka maawjintiina madaxweynaha u dhigtiin si dadku u gartaan inta ay soomaaliha ay tahay waayo adiga hawiyaha iyo majeerteen wiilii abtigii aniga waxaa la yidhahaa ay dusha iga xaarayaan ay leeyihin soomaali baa nahay dee kaa yeeli maayo dii نيو ماشان شافكا هادلاي markii oo ay socotay looltanka doorashadu kulay waa la socotaa u maleynaa hadda nin jeebkiisu ciilaad ii sheegayda war wallahi nin jeebkiisu ciilin ninka waliba carabaha lacag dhabarka guud imaaraadka lacag saa ugu seelinaysi qabiil ahaan ba ayaa ugu diidin xaasidnimo ka guduba horta tagtada daaya timaadada qabo midda hadda taaganaan ka hadlaynaa midda hadda taaganaan ka hadlayna ma fahanti ninka la yidhaahdo cali khaliif gallayr hargeysuu joogaa waana maamulkii hore qaatay maalin walbana inta hadlu wuxuu yidhaa isaaqu meeshaanay ugu jir dilaan ma fahanti oo hadba hoteela inta loogu galaa la yidhaha ma hadli karti nin la yidhaahdo caare oo jamhad wataana maalin dhoweed waatuu ka dagaalamayey magaalo dhan uu gabagabeeyey horta ma fahanti marka anigu horta dhulka koofureed oo Soomaaliya magaalo aanan tagin ma jirto laakiin anigu waqooyi weligay ma tagin hargeysa ma tagin Somaliland anigu meel ah ma tagin laakiin waxaan ka haystaa sawir wanaagsan laakiin ama horta inta yar ee Somaliland ku sharaxo ariyara ku sharaxo waxa weeyaan iminka Muuse Biixi waxay dadku u kacsan yihiin oo nidaamkii iyo khalkhal wuxuu jiraa ma garatay oo berigii hore Somaliland intaanu Muuse Biixi imin cidna may dacwooni jirin jabhada may jirin dhibaato badan may jirin ma garatay horta waxaan kuu sheego waxa weeyaan Somaliland ninkii ugu horeeyay ee qabsaday cigaal wuxuu ahaa nin waxa la yiraahaa siyaasi buu ahaa ma garatay nin siyaasina shacabka uu la dhaqmi karaa saasuu ku asaasay calankii iyo wadankii iyo dawladdii iyo wax kastaba ma garatay uu la magac baxay Somaliland ma garatay isagaana soo saaray ma garatay ninkii ku xigay wuxuu lahaa nin la yiraahdo Riyaale wuxuu ahaa nin ka shaqeeya CID-da Soomaaliya ku shaqeyn jiray waa nin dadka waxa la yiraahdaa maskaxdooda garanaya Somaliland buu hubka ka guray waxa la yiraahdaa uu ku guuleysay waa nin dad la dhaqmay waxa yimi Siinaayo wuxuu ahaa wasiir buu ahaa marka waa nin sidii dawlad loo wadayo iyo sidii shacabka loola tacaamulayo waa nin yaqaana laakiin Muuse Biixi nin siyaasi ma aha Muuse Biixi wuxuu ahaa ciidanka ayuu ka shaqeyn jiray waxa la yiraahdaa Soomaaliya ma gartay nin military buu ahaa markuu militarinimada ka baxayna uu jabhad buu galay jabhad markuu galayna hal mar baa wasiir loo dhiibay arrimaha gudaha waa kii dagaalkii habruhu ay biloomeen waayo ninka askari military markuu yahay waxa weeye hadalkayga maqal yaa ima waxa weeyaan cadceedtaas liintaas ka cabaysa waata imika ka socotana ma garatay marka markuu meeshan imika Soomaaliland waxa ka jirta nin baa doonay intuu kaligii taliyo ma garatay oo ciidan ah siyaasad ma yaqaano been ma yaqaano hadalka toos u taabanaya ninka siyaasiga ee Soomaaliland birtolo jeelka saas ugu koraya ma garatay waayo amar buu yaqaana amarka waa ina dawladda la maqlaa ay ku soo koray ninkani wax kale ma yaqaano horta mawduucan waxa Soomaali ma kala maaranta adaa ku wada hadalka ku wada kala ma maaranta anigu ku anigu waxa ku sheegay Somaliland maanta khalkhal ka jira waxay tahay waata marka xalkeedu waxa weeyaan Muuse Biixi intuu dhameysanayo hal iska samro markuu tagana ninka cirro ayaa siyaasi ah oo Soomaaliya la heshiin kara siyaasadna ku wadi kara laakiin ninkan waa siyaasi farmaajo waa nin political ah waa nin berigii hore safaaradda Soomaaliya ka shaqeyn jiray ma fahamti marka nin siyaasi iyo nin military ma isfahmi karaan
isaga laftiisa musabixi isagaa lahaa maalin dhaweyd farmaajo cidna ma u jawaabo farmaajo waa nin dictatoria waa nin siyaasa markuu farmaajo ku yidhina kaalaas la hadalno waa kii markiiba yidhi anaku ninkaama la hadliniba waayo wuxuu doonayay markii hore intuu la hadlo dee horta halaan kuu sheegayaa ma midda somaliland iyo annaga waqooyi iyo koonfur markii loo hadlayo mase midda annaga koonfurta dhexdeena horta annagu ninka la yidhaahdo waad ka sheekaysay muuse biixi waa nin ciidan oo aad sheegtay farmaajona horta nin ciidan u ahaa kaartada maaragtay labada u jeexanba ayaga og waxaanse kuu sheegaa shacabka soomaaliyeed ama hargeysa raas caseer ilaa raas kamboni meel kasta ha joogeene kalama maarmaan oo nin walba meeshuu rabuu ku noolaan karaa waxa qadiyadda soomaalinimo la yidhaahana dadka ku weyn waxaan kuu sheegaa marka 30 sano muddo ku dhowaada canugii dhashay wuxuu jiraa 30 sano maanta waxaa lagu tallaalay oo faysal cali waraabe iyo barraa aa sheegaydii muuse biixi iyo nimankaas waxay ku tallaaleen waxa la yidhaha somalilandernimo ma fahanta horta زين اوكي واي سؤال ما كويدين كرا سؤال ما كويدين كرا iikaada horta gabarre waqooyi oo isaaqaan shukaansanaya habeen dhaweed naaga intay ii timid ay tiri waryaa kani ma walaweynkiiba ma fahanta horta intaa cunsurinimada intaa leeg ma ii sheegi kartaa waxa lagu tallaalay يا عم ماشي waa nin ree koofuro صح meeshay gashay bal fiiri horta qadiyaddu meeshay gashay meel xumay gashay صح oo way halleeyeen nimankii dhallinyarada ahay oo waxaa la yidhi waar kan ma qadaad weynaa ma wala weynaa ma ree xamar baa ma fahanta horta ka gudub midda annaga aan isku haynaan kuu sheega annaga ree koofura midda aan isku hayno waxa waaye nidaamkii qabiilka waa laga soo gudbay maamulada hadda aniga markaan fiiriyo maamul deegaan ahaan aan uga tirsanahaa jira dadka deegaanka jooga maamul kastaaba qayb cid walba ay ku leedahay federaalkana waxaan ku leeyahay maalintii aan dareemo in layga sido oo la yidhaahdo qaybtii federaalka aan ku lahay waa iga maqan tahay waa ka doodaa waxaan idhaa xubintaasaan leeyahay hallaysiiyo marka aniga galmudug ahaan aan wax qaybsanayana waxaan idhahdaa waxbaa iga maqane qaybtaydii hallaysiiyo horta marka waxaan kuu sheegayaa midda farmaajaan kaaga hadlaa farmaajo 2017kii ayaa madaxweyne loo doortay wuxuu yidhi waxaan qabanayaa dalkaana nabad ka dhigayaa laamiya amnigaan samaynayaa doorasho hal qof iyo hal codahan gaarsiinayaa dalka argixisada waddanka ka xoreynaya ha laygu fiiriyo ma fahanta laba sana dhammaan rabta ma fahanta horta labadii sano ayadoo dhammaan rabta mooga aniga 2 sano iyo bar iska dhamiya mooga I don't know 2021 doorasho dhacayda la sheegay waxa ka dhimanna waa wax hal sano iyo tirsiya intaas waxa uu ku qaban karaa maanta ima muuqdaan oo xamar waxa ku dhimanaya waa dhalinyarada iyo aqoon-yahanada ganacsatada dadka deegaanka oo muqdisho u dhashay maalin walba hal doorkooda la dilaa inta aan la ogeynaa badan inta kaamaradu qabato ama saxaafaddu ay sheegtay iska dhaaf laakiin inta magaalada gudaheeda ama tuugu ku dila amni darro u dhinta ama haddii la cadaalad darro haddii la ku reeyaa loo dilo ama ay dilaan kuwa wax dilaa ama dawladdu qaab kale ay u mishinto oo la dilo horta anigaa mar walba dhibana ah ma fahanta horta waxa dhibaatada koowaad ay haysataa waa ree xamar anuu ree xamaraan ma fahanta horta maalinta qarax iga caloosheeda ka dhex dhacana kan waqooyi jooga iyo kan meel kale jooga wuxuu leeyahay xamar baa gubanaysa waxa dhimanayaana waa ilmahayga waa hooyaday waa walaalkay waa abtigay hal aan gaaro la iima ogola maamulka gobolka banaadir ninkii madaxda u ahaa ayaa haddeer maanta haddii ilaahay kuu roon yahay asagii ay biyihii ku yimaadeen oo awal loo diiday in maamulka gobolka banaadir ciidamo u gaara ay yeeshaan amni u gooniya ayagu ay samaystaan maqaamka xamar laga hadlo hawiyo waxa waaye ayaga majority oo magaaladii degana ay ilmahooda ay cishtaan qofka dilaya lasoo sheego nidaam la sameeyo xaafad orientation loogu sameeyo layska soo bixiyo dhibaatada dadka haya dadka la yidhaahda kaca oo dhulkii amni ka dhigta anigu hadda maanta haddaa garowga tago ama aan hargeysa tago yuu yahaa layleeyahy waa hawiyaa
maanta markaan taga meesha la yidhaha qardho waxaa la leeyahay intuu ka yimid xamar ma fahanti صح hoteelkuu ku soo degay yaa mas-uul ka ah صح xaguu seexdaa ma fahanta horta صح laakiin xamar maanta hadda adiga cadnaani haddaad kawaan ka furato oo aad tiraahdo gurigaan kiraysanaa kawaan oo dadka lagu qalo ninka joogaa reer xamarka kaa kiraysana wuxuu kaa qaadanaa lacagtaada wuxuu ku leeyahay waxa rabta ku qal واي سؤال ما كوديا واي qadiyadiyaa naga واي سؤال ما كوديا ها dadka marka yaa qaldan ma adiga qaldan ninkaagan hawiye mise Soomaalida ka qaldan maada qoortaada u dhiibay ilaa waa ka maqade maada qoortaada u dhiibay oo albaabkaaga u furay cid kasta meesha iska soo gasho kii khamriga cabay sharmuudadii kii walla kii isqarx marka aha inta albaabada u furtay ma garatay oo waliba xamar waa caasimad waay caasimada ma la bedeli karo dawladda ma yana arag iminka ma layga bedel maqade iminka inaka ag ma tii siyaad bare hadday tahay dawladdan mise ama dawlad federaaliya laba kala saar hadday tahay systemkii siyaad bare xamar waa caasimada Soomaaliya ma garatay cid walba timaad cid walba waa systemkii siyaad bare waa dawlad awood kaliya leh meel kaliya laga maamulo ma garatay laakiin meeshan waa dawlad federaaliya macnaha waxa weeyaan maadaam ay iyagu maamulo samaysteen nimankii daarood ay samaysteen nimankii isaaqna ay samaysteen maamulo oo ninka sabab albaabkiisa soo xidhay adiga marka tahay nin hawiya waxa ku diiday inaad tiraahid adeer maadaam ay Boosaaso nabad tahay amba Galmudug ay nabad tahay adeer caasimada iyo madaxweynaha ilaa xafiis yar buu baahayay xafiiskaas iyo oo aniguna albaabadeeda soo xirnay waa dhisaya waxaygi baan anigu isdabaraya oo qofka amba sida inuu maamulo samaysteen nabad samaysana aan samaystay fursad ay leeyihiin oo 5 sano laga dhigo waxa la yiraahdaa Galmudug 5 sano laga dhigo waxa la dawladda saa ku dhaqma ma ogtahay dawladda ayaa ku dhaqma maya horta federaaliga markay dawladdu ay tahay meesha dhibtu ay badan tahay caasimada waa laga raacmo laakiin inka hawiye marka aad tihiin adeer dadkan way nagu shaqaysanayaan waxa lagu shaqaysanaya ana ku sheegaya oo amnigiina waxa xumeynaya number 1 waxa weeyaa ninkan Puntland wuxuu sameeyay dawlad 66 xildhibaan buu leeyahay madaxweyne uu sameystay wuxuu leeyahay wasiiro wuxuu leeyahay ciidan wuxuu leeyahay boolis ma garatay ninkan Galmudug waa si lamid ah ma garatay anigaygii miskiinka ee xamar joogay ay leeyahay dawlad baa kugu dul sameeysanaya oo Soomaaliya la yiraaho calanka Soomaaliyana adiga ayaa inoo haynaya laakiin anigu kan Puntland aan ahay calan gaar ah baan leeyahay markaan carabaha amba shirkadaha la heshiinayo anigu waxaan ahay dawlad banaan baxsan baan ahay laakiin adigu marka hawiye aad tahay adigu waxa ay tahay ninka ay ilaalinaya caasimadeeda yar maalin kasta ku qarax maalin kasta ku dhimo 280 xildhibaan ayaa dushaada la dul keenay oo nin kastaba 3,000 qaadanayo wasiirada markay soo baxaan nin kastaba waxa la yiraahdaa intaas kun uu qaadanayo dhaqaalaha xaggaas lagu baabiyay ciidan ma lagu dhiso waxa la yiraahdaa maantada hadda Puntland aad tagtid ninka hawiye markuu tago ma lagu ixtiraamo ma lagu qadariyo hadduu Soomaaliland tago ma lagu qadariyo ma lagu ixtiraamo hadduu Jubaland iyo meelaha qabto saasoo kale ma lagu qadariyo laakiin adigu albaabkaagii cid kasta waa furtay waxa la yiraahdaa walaalayaal taa ma laga rabo adeer waxa la doonayaa albaabada soo xirisid dawladdu waa dawlad federaali ah waxa la yiraahdaa farmaajo waxa la yiraahdaa xamar maaha oo Soomaali dhan baa iska leh maaha adeer Boosaaso Soomaali baa leh waxa la yiraahdaa Galmudug Soomaali baa leh waxa u diiday gobolada kale in safaaradda la geeyo iyo dawladda la geeyo inta anigu ninkii qarxinayay inaan iska qabanayo adnaanow anigu horta hal maadaan kuu sheegaa horta mawduuca ah caasimada xamar ha laga raro laguma soo qaadi kartidoo waa in loo jig wax hadda aan ka hadlaynana maba aha maaha waa laga hadli karaa qaraxa waxa ku keenay inaan caasimadii baa tahay anigu oo maskaxdii baa laga xaday ninka intuu baasoos maqade caasimo ma ka yeeli maayo amu ninkan daarood intuu 3 maamul uu dhisto iyo ninkii isaaquna intuu dawlad uu dhisto uu nabad samaysto anigana carruurtayda iyo dadkaygii 24 saacadood la qarxinayo oo waliba markay dawladda Israa'iil soo kac xildhibaanadii laga soo doortay maamuladaas amba Israa'iil meesha dhaqaale u sameey amba wax u sameey
amba waxaa la yidhahaa okulen ugu soo geli inay aniga maamuladii cunaha iyo lugaha intay qabtaan ay bad sidii nin lugaha iyo gacmaha inta la qabtay bad lagu tuuray dhaqaaq saa u dhaqaaqi karaa horta niyow hal maadaa kuu sheega halka xamar wuxuu ku imaan karaan kuu sheegaa aniga caasimad iyo midna toona iyo haygala hadlin aniga adigu waxaan u wada hadlaynaa nin reer waqooyiya iyo nin reer koonfura iyo laba qof oon kala maarmin markii maanta nin habiyaha uu ila hadlayo horta wixii jiraan u bandhigi karaa oo waxaan dhihi karaa niyow adiguna waxaasaad ku qaldantaha anna waxaas laakiin markaan ka hadlo waxa ay tidhi nin reer waqooyiyaan ahay xamarow waxaad u xasili la'da balaayada ku haysataa maxay ma fahanta horta balaayada ay haysataa kuu sheegaa dadka muqdisho joogaahi waxa waaye waa dad gob ah waa dad soomaalinimada jecel waa dad haddii ilaahay ku ron yahay nidaamkii dawliga ahay iyo ay ku brogaraamsan tahay haba laysdilo dhulka ha burburo laakiin qof reer xamara markaad 3 sano saaxiib tihiin kabacdii ku weydiinaa ku leeyahay nin qola maa tahay ma fahanta horta 3 sano markaa saaxiib tihiin uu ku leeyahay nin maantaas baranno ama adigoo arrin baa la isku keenayaa mar laakiin adiga cadnaana maanta markaan isku aragno meesha la yidhaha hargeysa ama bowrame waxaad leedahay horta ninkaan iyuu yahay reer xamarku waxaan kuu sheegaya waxay ku heli karaan nabadgelyo kow in ay xaafadahooda meelaha dhibaatadu ay ka jirto meelaha balaayada lagu aruuriyo dhallinyarada dadka disha waxa dulmiga wada oday iyo wiil iyo gabar inta soo istaagaan ay yidhaahdaan xaafadan anugu dhegan aan iska baarno guddi ay samaystaan xaafad walba oo dawladdu ay og tahay oo dhallinyarada degan lasoo xisaabiyo ma fahanta horta magaalada waxa dhibaatadana haysataa waxay tahay ninkii amniga sugi lahaay oo tuutaha watay magaalada keligii 5 ama 4 ma dhex qaadi karaan inuu gaari teknika kor saaran yahay uu xaafadaha dhex maraayo ama shan isku waardiinayaan gaari dadka bulshada oo xamar jooga aan bislayn waay su'aal ma ku weydiin karaa ma kala soo baxday kaa su'aal xaafad ka tirsan markaan tago boorame ama hargeysa gabadha isaaq ah oo haddii ilaahay kuu reeyo cajiinka loo soo diraa waxay leedahay nin yimid صح aniguna haddaan raaxamar ahay maanta haddii gurigaan degan madfac lagu xaraysanayo habeenkii dadka lagu dhibaataynayo balaayo lagu abaabulayo dan kama lihi oo waxaan leeyahay war waxaani maxay yihiin ma dhahayo odayaasha deegaanka culummada dadka xaafadaha degan intay isu yimaadaan ay yidhaahdaan horta annagu aan isnadiifino xamar waa 16 degmo waaweyn 16kaas dadka degan majoritygoodu waa hawiye waa habargidi waa abgaal waa mursade waa xawaadle inta deganna waa in la taalla waaye ma fahanta horta wiilashooda shalay isbaaray dhiga jireen qaarkood waa laga qaaday waa laga ceeyey nidaamkaas waa burbur hadda waxay taagan tahay dadku shacabka ahi wasaarad uma shaqo tagaan wakaalad uma shaqo tagaan dawlad mushaar kama qaataan waxa waaye dhaqaalihii waddanka waa burburay ninkii marka dhibaatada samayn lahaa oo dhallinyarada dhibaatada samaynaya waa 3 qaybood waaye waa nin dhallinyara oo hooyadiis iyo aabihiis guriga ay baagamuuddo ku yihiin oo inta aqliga laga sirtay la yidhi niyo hawshaa noo fuli midna waa nin ladan oo qabiilkiisa ka tirsan oo magaalada degan oo maaragtay ganacsi ku haysta oo wixii isdilaya aan shaqo ku lahayn maalin dambana asagaa dhib ku dhacaa ninka saddexaadaa ku soo haray waa nin deegaanka oo dawladda ka tirsan oo gurigiisa aan imaan karin oo isla haddaan hadda maanta dawladda hadduu macallin ka yahay hadduu ka yahay ciidan hadduu ka yahay xaafiis haye gurigiisa uma hoyan karo sababtoo wuxuu ogayaa dadka xaafadda jooga inay dad bahalagaleen ku jiraan marka dadka reer xamarka waxaan leeyahay war intay isku laabataan warniyo waxaan lagu maadsanayaa waa annaga kan kismaayo jooga kan hargeysa jooga
kan garowa jooga wuxuu ku leeyahay war ma reer xamar baa tahay war ma dadkii halaabayba ummadda isqarxinayda oo dee waa isdilaydo hadalka waa balaayada ku istaashanta dhacdaya dee horta waa runtii camo dadkii salaamay camo aduma run baa doonaysa intaan kuu sheego mise been intaan kugu akriyo sida waxaa la yidhahaa daaroodka iyo isaaqa aan ku ammaano adeer anu runtan kuu sheegaya waxa maya weeyaan aniga eg anigu imka ah xamar baan deganahay gurigaygii waxaa la yidhaha imka waxay ku leeyihin xamar waa caasimadii soomaaliya maadaama xamar ay tahay caasimadii soomaaliya aniga madaxii iga saartay soomaaliya magacii soomaaliya calankii soomaaliya iga saartay maamul goboleed dadan waxaa laga rabaa ciidankoodii oo dhan intay keenaan si dadkan ula dagaalamo waa haddaa la rabo dee magaca soomaaliya iyo caasimada sax soomaaliya intay socoto laakiin aniga taydii baan dhisanayaa oo buntland laga keeno deega maqal hadalka camo hadalka ah hadalka aan kuu sheego laakiin anigu caasimadaydi baan haye haye dhisanayaa haye gorow waan dhisanayaa boosaasaan dhisanayaa galmudug baan dhisanayaa adduunyaan dhisanayaa marka anigana inankayga aqarxo carruurtayda jaamacado aan dhusayaa waxbaan u samaynayaa hadhow tale waxaan oranayaa wallahi reer xamarkii de waa hadalka inta lagu yidhahdo qonimadeeda ay laga arkay adeer waxaa lagaa rabaa runta inta laisku sheego ma garatay adigu soomaaliya o dhan adigu ma ka tihid wakiil hadday wax kula qaban waayaan adeer waxaa tiraa sax xukuumaddanba ma rabi adeer aniga maamulkaygaan samaysanayaa calankaygii baan samaysanayaa soomaali adeer cid ka fiican ma jirto iskuulladeeda carruurtayda lacag imika 200 iyo waxaa la yidhaha 280 xildhibaan baa ku dul fadhiya waxaa la nin kastaba 3,000 sax dollar u qaato waxaa la nin kastaba waxaa la yidhaha gaari iyo nin ilaaliya uu qaato ma garatay adigana ninkii ku ilaalinayay ciidankaagii booliska ku ilaalinayay waxaa la leeyahay $100 baan siinayna oo weliba marka barlamaanka lasoo dhigo ayay nimankii waxaa la yidhahaa hawiye amba waxaa la yidhaha nimankii daarood amba isaaq iyo ay joogay oranaya may ka daa lacagta yaa loo badan waa timaan dhawada arkaysa ay qaabdiidsanaayeen ilaahayeen ciidanka waxaa loo siinaya lacag badan ninkii ku difaacayay marka adiga lagu leeyahay adiguna dul fadhidid dacama adigaa qaldan ka kac hurdadan adeer soomaali ninka yani mushkilada kuweyna ku haysataa adiga nin majeerteen la yidhaaha maskaxda kaa qufushay yemiin buu ka oranayaa yemiin baa u cararaysaa bidix buu ka oranayaa bidix baa u cararaysaa marka ninkaa iska reeb adeer saddex maamul bay ku dul samaysteen iyo ciidan bay maqade saddex maamul bay ku dul samaysteen saddex maamul bay waxaa la yidhaha jaamacada ka samaysteen saddex maamul baa waxaa la yidhaha carruurtooda iskuul nabad ugu tagtaa adigan intaa lagu dul keenay maca xildhibaanadooda ku dul keeneen ayay maalin kastaba laisku kaa qarxinaya lacagtaadii baa la cunaya adeer xildhibaanadan iyo madaxweynahan iyo wasiirkan lacagta xagay ka keenaan waa lacagtii caasimadda sooma hadde lacagtaada adeer la soo noqo farmaajona adeer gurowe iyo boosaaso iyo meelaha qabto waxaa kuwaalaya horta hal maadaan kuu sheegaya war aniga maadaha hay sheegina waa qaldatiin adeer hawiye adeer waa qaldatiin runta cid inii sheegtaa weydeen war dhegaysto hawiye ka hadli maayo waxaan ku leeyahay marka magaca xamaraan ku hadlahay xamar deema ininku soo ninka deega maqal xamar ininku miyaan ugu badnayn ninka lugtu ga'aysa gacantu ga'aysa miyaana adiga ahayn ninka carruurta ka agoontay iyo aabbo waaye iyo hooye waaye adiga miyaanu ahayn ninka maanta soomaaliya hog ku dhacay adiga miyaanu ahayn dee adeer runta isku sheegno niman kale iska soo cayri nin isaaqoo maqal nin isaaqoo hargeysa waxaa la yidhahaa nabad ay tahay oo xildhibaan lehoo wasiir lehoo madaxweynihiisuna xagga afka buurayo aniga wuxuu iga dhex samaynaya xamar wallahi haddaan xamar joogaa raxamar alla waa eri lahaa wallahi cid kastoo isaaqo oo iman lahayd waxaa la yidhaha xamar baxa baan ka hor lahaa naga dhaafa horta hal isku sheega anigu xaldoonaan ahaye horta xalka aan doonayaa war xalka gurigaaga hagaaji xalka gurigaaga hagaaji adoo gurigaaga burbursayay baa leedahay soomaaliya soo taagan tahay gurigaagii baaba qaawan gabdhahaagii baa dhibaata haysataa inamadaadii baa shaqala hortay dhegayso madaxa meel ka sarreydoo la salaaxaayo ma jiro caasimadda muqdisho dhibkii gaaraa qof walba oo soomaaliya ku nool hargeysa ha joogo kismaayo ha joogo ayay horta magacaas damage ku noqonaa qof kasta oo soomaaliya wixii xamar ka dhaca qof walba soomaaliya dhibaatadaas ay ku dhacday war aniga dhibaata ma hayso war anigu wallahi anigu runta ku sheegay adeer anigu ku damqan maayo caalamka war caalamka ka bax anigu nin reer burca baan ahay ninka reer Soomaaliya wallahi ana ku damqanin waxaana kugu damqanaya leesh carruurtayda iskuul bay tagtaa adeer waxaa la yidhahaa jaamacadayga baxdaa markaan safrayna Ethiopia qabtaa adeegayga ka soo qaataa
ma garatay carabtaydaasaan afka u yara dhigtaa ma garatay meesha ayaa ku silcay adeer adaa ku silcay ninka puntland dushaadii buu isagoo waxaa la yidhaha kuleha calankii soomaali baan nahay ayuu maalin kastaba dibayo iyo meel kastaba qabtaa ayuu businesskiisa wixiisa ka shaqaystaa uu danihiisa ka shaqaystaa ninka mg iyo ninka daarood ka shaqaystaa waxaa adiga kuwaale adeer dantaada eego marka ugu horeysa dantaada markaa eegatid ayay soomaaliya hagaagaysaa marka adigu wax noqotid ay uu nabad uu noqdo horta aniga dhagaha maahi horta dhagaha hal mar isii dee waan ku siiyey dee waxay kala hadlaysaa wax caatifada adeer annaku caatifad ma naqaanin ma kuu damqaniydi adeer qaraxanba isdil caatifada oon reexamarku dhagayso reexamarku waa dad lab xaaran wallahi billahi tullahi waa dad lab xaaran waa dada qabiil aqoon waa dada qofka la deriska aqoon waa qof dhibaatada qofka u geystay aan la aqoon markii sharqan ama jabaq agtiisa ay ka dhacdo waxa waaye meesha wax ka dhacaan uma cararee gadaal u cararaa laakiin adigu marka adigu isaaq ah ku hadleed horta puntland ilaahay ku tusay oo waxa waaye ood wadaagaad la tahay waxa waaye waxaan ku weydiinaa xamar dhibaatada haydaan kuu sheegaa xamar muddo 11 sano ka badana horta ajnabiyaa degan oo ciidamo waxaa jooga mushaar ku qaata oo waxooda hilbooda meesha ku bislaysta ma fahanto mushaarkoodana qaata dhowrka kuna ciidankii soomaaliyeed oo militariga lahaa oo booliiska lahaa oo asluubta lahaa oo cid walba lahaana horta lacag ma qaataan kan la soo qoro oo la keena $100 wax ka yar la siiyaa biilkiisa iyo saabuuntiisa kuma filla qoys uu ku biila iska daaya horta sharaftacu meeshu nooga yimidaan kuu sheega hadday dowladdan tahay iyo hadday tii ka horreedayba tahayba anuu markaa farmaajo wax ka sheegayo waxay tahay marka dadka deegaanka jooga xamar ay wax qabsadaan oo arkaan inay yihiin dad bannaan baxaya dad maanta qofka laga dilo usoo baxaya war shimbirahan ku dhahay markii hal shimbir laga reebto raqdeeda meeshay ku dhacday waa taqaanaa lee xamarku markay fahmaan dhibaatada hayda kasoo bannaan baxaan kooda la dilaayo aysa ka samrin hadda dhibaatadii maanta dhacday shalaydan qoyan 5 beri markii la joogo waa la iloobaa mid kale hadda sawno kula dacama sawno kula de sawno kula sawnuga kulaha waxaagi waa iska socdaa waxaagi adiguna waa hurda adeer ka kac meesha hurdada war hadda aan kuu sheego waxa aniga aan la jiifaan kuu sheegaa mid waa midaan ku dhahay dhaqaalihii waa layga xayiray odaygii hawiye oo hadli jiray hotel uu ku jiraa oo baca lacag dhigay ciidankaygii dhagayso ninkii ganacsatada ahay oo xamar joogay oo cidda ahay waxa waaye oo dadka deegaanka ahay 2 canshuura laga qaadaa dawladuna waa ka qaadataa madax jabisna waa ka qaataan ma faham dhibaatada ahaydaan kuu sheegaa oo kale maanta markay wax dhacaan oo dhibaata ay dhacdo qofka wadada laga xiraayo oo bulukbaalkii lagu goynaayo dhagaxa oo ilma naag xamar joogtaa ma dhali kartaa lii bannaanka ma u soo bixi karto ma fahanta horta hadday saqda xafoo la qabato isbaara hortaalla sababtana waxay ku dhacday waxaa la yidhi meeshaan balaayaa ku jirteen naga ooda annaguna aan nabad ku jiifno nimankaa marka dowladda ah waxa weeye anigu horta wax aan ku eedaynaya waa wax dhaafay ummaddii dhanaa eedayday waxay yidhaahdaan waxba ma qabtaan waxay yidhaahdaan xaggay ka shubteen hadda waxaa la yidhi war la qabaa xiisa ma leh laakiin midda aniga ay haydan kuu sheega waxaa uga bixi karaa inaan anigu dhallinyaradayda aan haddii ilaahay kuu raba dhibaatada gaarayda aan nidaam u samaysto maamulka gobolka banaadir aan ciidamo gaara u samaysto mushaar gooni ah oo u soo dhaco beesha caalamku lacag balaayiin $ay bixidaa oo ay tiraahdaa ciidamadaas waxaan siinaynaa dowladda soomaaliya xaggee aadaa dee maamuladay qabataa maamul ma qabatee maamulaa lagu dumiyaa war aadare maqal harta wax yar aan kuu sheego maanta adiga madaxweynaan kaa dhignay maqal dee anigu wax yar basitan kuu sheegaya inta labada lugood iyo labada gacmood iga maqal dee horta iga maqal camal xilliga xasan sheekh uu joogay 43 qarax baa xamar ka dhacday hadda farmaajo uu joogo 90 baa la marayaa lagu yiri anigu ma tirin mana aqaan laakiin dadka ka soo xusay ma fahanto horta bab halkan ku dhufo lagama qabto qaba balaayo waxaa la yiri balaayo waatana haddii la yidhaha aakhirka buulkaaga soo gashaa
haddaadan ka hortegin صح dee camo marka waxa ifaham haddaba camo aniga challenge haddaba waxa weeyaan marka ugu horeysa camo haye qaladka ninkaa leh anigu saan kuu sheegay anigu kaala leexan maayo hadalka ma garatay waxa horta deega eedda maqal iga daa aniga deega maqal camo maanta halka ii maqal hal deega maqal camo hadalka challenge badan baa ku siiyey ma fahamtay waxa haye weeyaan marka ugu horeysa farmaajo waxa weeyaan muddo 4 sano la siiyey horta madaxweyne 4 sano ay ku filantay horta ma jirto ma garatay ninka ku yaraa madaxweyne baan ay 4 sano wax ku bedelaya waxa ku sameynaya waa been Soomaaliya gabigeedaba systemkeeda soo qadayay waayo madaxweynahan marka ugu horeysa 4 sano wuxuu ka shaqeynayaa madaxweynihii hore wuxuu dhex galay wuxuu sameeyay wuxuu siyaasad wax ay ka shaqeynayaa ma garatay waxa la yiraahdaa marka ugu yaraa 3 sano 4 sano ka qaadanaysa kabacdi buu biloobaya inuu ka shaqeeyo waxa la yiraahdaa wuxuu isagu ku ballan qaaday ma garatay laakiin dhibaatada weyn ee Soomaaliya jirta waxa la oranayaa madaxweynaha imanaya waxa la yiraahdaa 4 sano buu leeyahay 4 sano wuxuu qabanayaa ay madaxweyne horta ma jirto qodobka labaad madaxweyne yaa baabiyay waxa baabiyay waa maamul goboleed ma garatay oo federaaligi qalad loo fahmay ma fahamtay maanta farmaajo hadduu isiraaha wax qabo oo wax samee dini baa xaggan u fadhiyo libaaxo bahala ma garatay xagga waxa u fadhiya Axmed Madoobe oo Kenya la shaqeeya xagga ma fahamtay xaggan waxa jooga waxa la yiraahdaa kii gulmudug oo isaguna carabaha u shaqeeya xaggan waxa hor jooga nimankii Soomaaliland oo waxa la yiraahdaa maalin kasta foodo wada ma garatay madaxweyne meeshina waxa la rabaa dawlad tayo leh dawlad laga dambeeyo maadaama maamulkii gobolku aanu uu systemkiisu uu qaldan yahay uu dawladda uu doonayo inuu isbarbar dhigo ma garatay oo aniga madaxweyne diini baan ahay madaxweyne farmaajo aniga wuxuu saayay la dhaqmaya ay tahay oo laba madaxweyne ay yihiin aadar weligeed hagaagmaysa adigu ba burburi ninkaagan hawiye adigu ba ninkan diini waxa la yiraahdaa waa nin daarooda ninkan farmaajo waa nin daarooda ninka meesha ku baaba'aya ee la isku haysta ee saddex maamul ay saa u cunayaan dawladii ay ka hortaageen waa adiga ma garatay farmaajo uu iska tagaya ka kala imanaya 9 ba ka hadlaysaa 150 bay noqonaysaa marka aadar waxa la rabaa inta runta la isku sheego oo ah war hawiyow tashada maamulkiina gacanta gashada dawladda Soomaaliya adiga waxa la yiraahdaa wakiil ma ka tihid mas'uulna ma ka tihid adigu waxa iska mas'uul tahay waa carruurtaada iyo nabadooda sida iskuulkooda ay firi ugu tagaan taasina waxay imanaysaa waa caasimada oo laga raro oo de nimanka loo geeyo iyagu waxa la yiraahdaa mas'uuliyadooda qaadaan boosaaso waa caasimad Soomaali iska leedahay waxa la yiraahdaa garowe waa caasimad Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa Jubbaland caasimadeeda waa caasimad Soomaaliyeed ma aha uu intaan anigu iska dhaadhiciyo aniga caasimadii Soomaaliya waa waxa xagaa ku dhigay maanta waa lagu dulcunaya lacag waa lagu isku qarxinaya carruurta tacliina helimayso waxna helimayso nimankan iska foge xildhibaanadoodana de xagaa ka bixiyaan ma rabni lacagtooda adaa wadankaaga markaa controlship caasimadada markaa controlship nabad ay ku noqoto markaas la jaan qaadi kartaa maamulada markaas kelmad yeelan kartaa markaas xataa ninka madaxweynaha ee ku yimaada caasimada marka ay noqoto ninka maamulka iswalwaala waa qabsan karta waayo adigi baa nabada adigi baa difaaci kara laakiin adigi baa gurigaaga baaba yahay markaasanaada Soomaaliya aada socon mayso been baa isku sheegaysa khayaal baa ku nooshay weligeedna systemka federaaligan weligeed dawlad ku dhisan mayso waa been waxa federaalka loo sameeyay in Soomaaliya isku si baabado bas inay waqti dheer sii qaadato aanay Soomaaliya heshiin ku heshiin maayaan waayo maamuladan waa wara qabiil Puntland ma jarteen baa iskale waxa la yiraahdaa baashi Jubbaland daarood baa samaystay waxa la yiraahdaa Soomaaliland isaaq baa samaystay adigu ba waxa la yiraahdaa meesha arooska ah oo maalka sabab lagu qaraacaya lagu tumaya oo xagga laga daawanay markaas lagu leeyahay waa ka naxnay haday ka naxayaan adeer waxa weeye calaamadan ay wataan iska dhigaan ciidanka Puntland iyo ciidanka Galmudug ima qade ciidanka Puntland iyo ciidanka Galmudug iyo ciidanka waxa la yiraahdaa Shabeelle iyo ciidanka waxa soo dhan waa inay xamar wareeymaadaan waa in dhalinyarta Puntland iyo xamar iyo gobolada wara jooga waa in dhalinyarta 19 jir ah amba 20 jir inta la soo kaxeeyo la hubeeyo shabaabka la dagaalama laga saaraa oo jid kastaba nin ciidan uu taagan yahay waxtii Soomaali rabaan laakiin adiga baa lagu dul xaaray markaas leedahay Soomaali FIFA khali FIFA ku ahaato
horta dad baa waxay ku leeyihiin isoo qaba cadnaanow aniga adigu waa isku dheeraanay waa ها isku baabaanay ها waa ceel biirahan لكن ka cabnay anigu middaas hor hadalka wuu ku dhamaynaya waa intaana bixin aniga kasoo qaadan isaa qabaanahay adeer meel maamulo aana madaxweynahoodii maqleen diini oo aana farmaajo u joojinayn oo ka daba hadlaya waxaa la yidhaha ninkaas kale waxaa la yidhaha maxamed waxaa la yidhaha maxamed madoobe oo oranaya waa maxay huis farmaajo uu yahay dee adeer anigu kursi la farsan kari maayo ininku soo heshiiya nidaamkiina samaysta ininkoo dawladda ii kaalaya ininkoo dee gar aan ka helayo qof aan la hadlo horta asxaab badan baa ku sugayseen cadnaanow hal midaan kuu sheegaya horta asxaab badan baa ku sugayda dhammaan waxaan raalli gelinayaa horta dadka asxaabta oo meesha ku jira maadaama aniga cadnaan in badan aan isku dheeraanay waxaana arrintu ay tahay gundhugeedu waxaa la yidhi ninka soo socdaa niyow maxaan nidhaahnaa laba nin isweydiiyey nin baa wuxuu yidhaahdaan wax ka leenahay ninna wuxuu yidhi aan wax weydiino marka anigu waxaan kuu sheegaa marka aan soomaaliya markii muqdisho laga hadlo muqdisho waa magaalo madaxdii soomaaliya haddaan idhaahdo ana iskalana iguma rabtido waa igu nacee waxaad leedahay warsaad ku yeelatay waa magaalo madaxdii dalkeed markii balaaya waxa wax bixinayo wax dilaya oo dhibaatada nagu hayaahay hawiye maaha waa dad kor ka yimid waa dad gobollada ka yimid waa dad balaayo ku raran oo guryaheennay soo degay oo inta xamar soo wada degeen aan cidik xamar waa caasimadii ma dhihi kara anaa iskale ma fahamta horta laakiin anay deegaan ii tahay laakiin qof hawiye ah waa dhif iyo naadir oo ama maanta dhibaato qof ku samaynaya xamar nin tuuga waa laga yaabaa laakiin waxa idilaya waa dad kor ka yimid dadkaasna waxaan iskaga qaban karaa markaan anigu dowladdii aan idhaahdo war federaalaatiisoo ima lihidiin haa ciidan ka keen puntland jubbaland ciidan ka keen galmudug ciidan ka keen hirshabeelle ka keen koonfur galbeed ka keen ciidan federaaloo dowladda federaalka mushaar ka qaata oo magaalada xasiliya oo gobol walba ka yimid oo aan qabiil aqoonin oo isku dhaf ah aan magaalada inta la keeno lagu xasili karaa xaafad walba la deji karaa degmadeeda xarunteeda ciidanka saldhigyadeeda la samayn karaa ma fahamta horta dadka deegaankuna ay la shaqeeyaan marka nin yaana isku dheeraan waxa waaye waxaa la yidhi baalig la afqurun kuma kala tagsa dadka soomaaliyeed kalama maarmaan waaya haddaba intaana ka bixin anigu kelmad baan sii oranaya intaana ka bixin yaro bixin kelmad baan kusii oranaya anigu waxaan ku oranayaa camo adigu nin hawiye baa tahay xamar adiga iska leh ninkan kule waxaa yidhaha soomaaliya waa caasimadii xamar adeer ku dhakaale caasimadaada ka dhig anigu waa gobolkaaga ama magaaladaada waa dhul soomaaliyeed mayga xigtid ma garatay intaan anigu waxayga hagaajisanayo inta nabadayda suginayo inta kiiga baxayay kii soo gelayay aan la dagaalami lahaa shabaab adaa ku filan hadday hawiye aad tahay hadday kaaga baxaan raggan magaaladii ma garatay oo caasimadda lagaa raro marka anigu waxaan oran lahaa hawiyow adeer filinka soomaaliya waxaa la yidhahaa qalad baa ka aaminsantihin soomaaliya waxay imanaysaa marka adigu aad fahamtid xamar adiga iska leh intaa ka telisid kii soo geliyey kii soo baxayey hoggaanka u qabatid markaas unba waxaa la yidhaha caasimadaas ku hagaagaysa waddankaa ku hagaagaya afartan maamul ee beenta kuu sheegaya ee carruurtooda iskuulle intay dhisteen adigana hub lagu soo waaridayo iyo qarax lagu soo waaridayo adeer caasimadda faraha ka saar oo nabadaada adkayso iyo carruurtaada waxaa la yidhaha ilaaso baa odhan ku oran lahaa marka adigu wax noqotid kabacdi soomaaliyay kaalaya un ku dheh intaas baanu ku oran lahaa aad iyo aad ma umadsantay ama oo kaa jecelay camo soomaalida isku timaado laakiin anigu waxaan diiday laakiin marka anigu isaaqaan ahay anigu waxaan diiday beenta majeerteen iyo daalood baan diiday iyo hawiyo ya doqoniima ay ku jirto oo nimankaasi ay sixireen adeer bye bye ya aniga waxaan ku weydiinaa horta inaadeerow cadnaanow hadda ka hor 90kii markay dowladdii siyaad barre ay dhici rabtay waxaan deganaa meel la yidhaha laftoole canug yaraan ahay laamiga inta soo istaagaan waxaan waayey lacag aan bas ku raaco baabuur liftiya oo langrusel fiekisaan gacanta u taagay anoo jaamacadda lafooda hor taagan laamiga bareegaa la ii qabta horta inaan qabiil aqoon laakiin dadku ay bareenaan kuu sheegay haddaan reexamar ahay markay bareega la ii qabtay
baa gadaal layga furay waxaa saaran askartii siyaad barre صح aniguna xamar weynaa u socdaa ceelgaab صح meel la yidhaahdo ma fahamta horta صح gadaal layga furay markaan soo fuulay wax allaala waxa gaariga saaran kulli waa ciidan صح waa askar militariya صح markaan soo fuulayaa la qoslay صح aa la yidhi qostala inta lagu dhuftaa la yidhi war haye niyow qola ma aheed adigu صح waa askartii siyaad barre صح ogow aniga waxaan ciddayda ma aqaan wallaahi inaanan been kuu sheegayn sagaashankii inaana aqoon cidaan ahay صح markaasaa waxaan idhi anugu nin soomaaliyaan صح horta reer waqooyiga qabiilka iyo caadifadda iyo balaayada isaaqaa noo keena صح isaaq ka hor yaa qabiil yaqaan nin habar jeclo waaye habar awal waaye habar hebel waaye xamar qaadna lagama aqoon qabiilna lagama aqoon صح adinkaa noo keenteen صح ma fahamta horta اه markaasaa la yidhi warniyow ciddaa tahay noo sheeg صح markaasaa idhi nimayow aniga walaalkaya waxay ahay askar asluubta ka tirsan oo ah haddii ilaahay kuu ran yahay laba xarig leh waana hebel hebel ciidamada aan ku abtirsadaan kuu sheegaha idin leeyahay nin hebel saraakiisha ciidamada usoo tiriyey ma صح fahamta anu raggaasaan ku qabiila صح markay marayaan isbitaal banaadir baa inta gaarigii lai joojiyaa layidhi niyow lacagtaana qaado hadda kabacdina soomaaliyaa tahay horta reer xamarku waa kuwaas صح baabuurkan xamar weyne u socdana raac صح ma faham صح annagu reer xamar haddaan nahay niyow waxa waaye qaadadna barteen nin waxaa la yidhi isaaqaa koonfurta qaad keenay xaafad tuulaa wax ka gato ayaa la yidhi صح 5 maalmooduu qaybinayay uu dhahaya waa lacag la'aan صح maalinta dambe jaadkii qabteen dad صح markaasuu yidhi waa lacag marka niyow cafi masaamax dadka asxaabtaa meesha ku jirana la hadal صح hawiye haddaan ahayna xalan ka keenaya ما xalkeen adigu camo adigu tasho calankaaga samaysan iyo madaxdaada samaysan iyo maamulkaaga adigana 60 xildhibaan samayso iyo 70 xildhibaan samayso miyay kaa fiican kuwa kale lacagta yaanay kaa cararin ma garatay hadda xamar haywaakaas in adeero dadka janisi marka khayran kuu rajaynaa soomaaliya ha noolaato wax la yidhaahdo somalilandna ma jiraan soomaaliya waa soomaaliya war aniga nimankaa u iman maaye yalla macsala yalla insha allah khair ay ما شاء الله ninka saaxiib baan nahay ma sha Allah waana suxufi caana yaa dood baan dhaxmartay ilaahay tiin waa iska xili dambe marwal waa iska soo galaayo yaa beeshka aan iska leeyahay kulligiin waana salaamay anigu taladan siinaya hawiye waxa weeyaan war adeer filinkan calankan iyo Soomaaliya filinka inta ka baxdid war gurigaaga ilaasho yaa lagu dul cunin lacagtaadii yaa lagu dul cunin waxa la yiraahdaa xuquuqdaadii yaa lagu dul cunin waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa baaki oo been lagu sheegin ragna intay guri dhisteen iyo maamul dhisteen iyo ciidan dhisteen ay kabadshine ay cabaan inta yara xataa lacag haysatid intay ku yimaadaan bay ka cunayaan ay ku sheeganayaan wana maqdisho waa caasimadii Soomaaliya waraadeer caasimada boosaasaha noqotay meel kale noqotay baashi iska fogeeya nabad ku noolaada ayaa leeyahay inta qabateen waa ka badan tahay Soomaaliya inta oo adkaysateen laakiin no more maalin kasta carruurtii baa loo dilay lagu gooracay hadana runtii la sheegina adan naar jahannam baan qabanayna si xoon baan la dulmay marka tashada waxaan ma soconaysaa bahbahaagan iyo Soomaali hadii heshiin lahayd hadii hal ay tahay 10 maamul may soo baxeen 10 calan may soo baxeen qabiil baa la doonay intuu lacag yeesho xildhibaanada arkaysi waa lacag waa dollar weeyaan nina lacagtii ka faa'iidayo nabad buu sameysanayaa nin kalena gurigiisa baa lagu weeyay habeenay maalin ma soconayso marka gurigiina sameeysta adeer waxaan ka tashadan baan anigu oran lahaa wallahi marka adigu tashitid maamulkaaga sameeysid markaas u kaalay soo dhow marka ku dhahaye Soomaalinimadu waa tan caasimadii baan ahay ma soo celiyaa bismi laakiin adigu asbaabinu baan anigu leeyahay wallahi film bay wadaan dadkani habeenay maalin wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.